wasiir dowlaha nabadeynta iyo horumarinta Jumhuriyadda Soomaaliland ee gobolada bariga oo in muddo ah ku sugnaa xarunta gobolka Sool ee Laascaanood ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay dhammaan hay'adaha dawladda ee gobolka Sool iyo waliba gudoomiyaha gobolka Sool kula yeeshay xarunta gobolka Sool ee Laascaanood waxaana kulanka uu la yeeshay mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda kala duwan ku booriyay inay dardargeliyaan howlaha dawladda ee ku tacalluqa adeegga bulshada kulanka kadib waxa gudoomiyaha gobolka Sool mudane Maxamed Faarax Aadan iyo wasiir dowlaha horumarinta iyo nabadeynta gobolada bariga Soomaaliland mudane Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle ay kormeer ku gaadheen magaalada Arcade iyo duleedka magaalada Laascaanood halkaas oo kulan ballaaran la yeeshay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Arcade ay kala hadleen shaqaaqa dhawaan ka dhacday deegaankaasi in ay nabadgelyada adkeeyaan dhanka kale munaasabada ay qalab kula wareegayeen ururka Naaw ee gobolka Sool ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Sool halkaas oo ka qayb galay wasiir dowlaha nabadeynta iyo horumarinta Soomaaliland munaasabadaasi waxa ugu horeyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka Naaw Marwa Nadiifo Cali Joog oo mahad celisay ka soo qayb galayaasha iyo waliba marwada madaxweynaha Jumhuriyadda Soomaaliland Aamina Waris oo iyadu qalabka lagu tababaraya haweenka gobolka Sool ugu deeqday marwada madaxweynaha Jumhuriyadda Soomaaliland Marwa Aamina Maxamuud Jirde waxay soo dhiibtay oo ay soo idmatay 3 dawaar oo agabka farsamada gacanta hadii insha Allah dilay karaan noqdo ana inaan idin keenay idinku wareejiyay adiga gudoominaysa dadka haweenka gobolka Sool asna halkaasi ka hadlay wasiir dowlaha nabadeynta iyo horumarinta Soomaaliland mudane Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle oo ugu baaqay bahweynta haweenka gobolka Sool ee ururka Naaw inay ka shaqeeyaan sidii ay u madoobi lahaayeen haweenka gobolka Sool ururka Naaw oo ay marwadu mas'uuliyadda weyn iyo halka madaxweynahooda ka yahay haweenkana ay oday u tahay halkan idin yaala dawaar la idin qaybin doono oo idinku qaban doonaan iyadana waa idin barakeynaya waa idinku duceynaya yani isleeyahay boqolkiiba 85 ragaale 85 dumarka ale ee laga yaabay xagga maamulada inaanay ka helin wixii ay mudnaayeen wallahi wixii waa naga heli doontaan iska dulqaata aad iyo aadna waa idin ka mahad celinaya dadaalkiin wixiisa soo jaabiray wixii horumarkaan ka qayb qaadanaa xaflad baanu qabanaa wax cid u yeelaya waa intii aan joogo waa qoladii ugu horeysay dadka dumarka aan mar walba calanka dawladda anagu kama maamulka kama maarano hase ahaatee waxaanu nahay anagu maamul madax banaan baanu nahay haddaanu nabadda nahay meel allaale meeshii aanu doonaba waanu jiiraynaa waa maraynaa nabadaanu ku maraynaa nabadaanu anagu hirgelinaynaa nabadaanu maalinkan maanta wacyi gelinaynaa nabadaanu sinaha dadka fariisinaynaa dadka barakacay baanu u yeeraynaa dawiyada maalinkan maanta la marayaanu anagu sii jeexaynaa sanaan kadib waxaan maanta halkan isugu nimid xaflad ballaaran taas lagu dardargelinayo haweenweynaha gobolka Sool isla markaana ay keentay gudoomiyaha Naaw dawaare ay gudoonsiin doonto macallimiin gaar ah kuwaas oo tababaro shahaadooyin u keensaday isla markaana iyaguna sii tababari doona haweenka inta kale oo ay soo dhiibtay marwada madaxweynaha taas oo ka mas'uula haweenweynaha Soomaaliland oo dhan halkaas ka hadlay qaar ka mid ah haweenkan garabyada kala duwan ee gobolka Sool oo dhamaantood u mahad celiyay marwada madaxweynaha Jumhuriyadda Soomaaliland oo ugu deeqday qalabkaasi ee lagu tababarayo haweenka gobolka Sool waa Barkad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood.